jacayl ay keen faantirar hargeysa dhamaantiin waan jecelahay shacabkayga dadkii taageero iyo dadkii jecelbo waxaa dhihi lahaa hargeysa waan joogaan oo nabad qabo alxamdulillah ala soo dhaweeyna taas isoo dhaweeyay hargeysa aad baan idin jeclaa wallahi waa ku riyo jiray ugu dambeeyadeeda maanta ilaaha i rumay thank you Mrs. Wall ayaa lagu xiray jamhuuriyadda waxaa gacanta ku dhigay booliiska Somaliland jirdil ayaa loo geystay sida wararku qaar ay sheegayaan waxaana la dhigay jeelka iyadoo hadda la soo warinaya liintii inay u bilaabatay maxaa loo jirdilayaa gabadhan caawasa ma laga yaabaa faragelin inay timaado dhinac kasta leh maadaama ay qof dumar ah ay tahay gabadhan intaas iyo in ka badan ayaan soo gudbin doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan idinka codsanaynaa in muuqaalkan falow dhahdaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan haddii aan nagala socoto baraheena kale sida YouTube iyo TikTok-na waxaan kugu xishmeenaynaa in TikTok follow ayuu kaaga baahan yahay halka YouTube-na uu kaaga baahan yahay kaliya inaad subscribe taabato gambaleelkana furato si aad u hesho macluumaadyadan halkan soo gelina oo kala waa hagaag sanad guuro wanaagsan mar kale saaxiibayaal Miss Wall oo caan ka ah baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok ayaa la xiray goordhaweed saaxiibayaal hargeysa ayaa lagu qabtay waxaana loo galay si aan caadi ahayn dadku inta ugu badan waxay moodaan in garoonka diyaaradaha laga qabtay laakiin sheekada sidaas way ka duwan tahay saaxiibayaal gabadhan waxaa la qabtay iyadoo dhuumanaysa waxaana laga soo dejiyay bas ay saarneeday iyadoo qorsheynaysa markan inay safar dhulka ay ku tagto halkaas Miss Wall booliiska ayaa gacanta ku dhigay durbana liintii qaraarkeeda ayaa lagu dhex cabsiinayaa saaxiibayaal xabsi ku yaala hargeysa dowladda iskeed iskugu dhawaaqda madax banaanidaas ay yeeshee cidna aysan aqoonsaneen waxay dhowaan xabsi kaga badbaaday ninka lagu magacaabo baabaji kaas oo ay ka kansaleen show halkaas uu ku qaba lahaa dadka caanka ee reer muqdisho ayaa inta badan lagu dhibaateeyaa magaalada hargeysa ee caasimadda Somaliland mana jiro ilaa iyo hadda fahamka hoose iyo sidoo kale ujeedka ka dambeysa cid cadeey karta in dadkaasi la xira hase yeeshee dadka wax darsay siyaasadaha ku tacalluqo waxay dhahaan in dadkii muqdisho ka tagay hadii la xiray Somaliland ay u arkayso in ictiraaf ay ku helayso hase yeeshee Miss Wall ayaa dhowr jeer lagu xiray magaalada hargeysa waxaana jira jirdil xoogan oo gabadha loo geystay inkastoo wararku qaar ay sheegayaan inay dhici karto caawa haddii xabsigu ku yeeto in faragelin hoose ay iska dhici karto sidee doonto ahaatee Miss Wall ayaa taageerayaasheeda waxay baraha bulshada kusoo daawacayeen inay ka xun yihiin xaragga loo geystay gabadha moodadalada gabadhan ayaa waxay caan ka tahay aaladda TikTok sidoo kale YouTube dhawaan ayay ahayd markii hargeysa ay tagtay kadibna garoonka iyaduna ka degan dib loo soo celiyay Somaliland lama garanayo waxay u beegsanaysaa dadka moodo caanka hase yeeshee wali waxa ay dhaxma quranayaan muujadaan caadi ahayn haddaba saaxiibayaal Miss Wall liinta ay cabaysaa maxaa kula talinaysaan Somaliland tan ay markasta joogtay ka dhigatay in lagu jirdilo maynaado mase inay ka baaqsato Somaliland xilligee ayay ka kaaftoomi doonaan in dadka reer muqdisho ay xirxiraan ayagoo cuqdad gooni ah u raatanaya waad ku maasantiin dhammaantiin daawashada muuqaalkan saaxiibayaal ee noo share gareeya